سبلع ذا يقرح بناته check point يدا حتى الميلها يالان والله شيء وحا even وحا يالا وإن لقرحياه شقفيه حنحن وفالفال حني waxaan micno lahayn oo moodoonaysan ciidan dawladeedu oolin inay yaalaan ma aha hatta check point-ga waa in bir qurux badan oo waxoogaa hagaagsan oo nadiif ah waa in meesha taalo la garto waa laakiin shaqafyada iyo daasadaha iyo waxa la dhiganayo meesha la dhigin check point-yo laga dhigay in la bedelaan rabo bilic xumo iyo fool xumo ay magaalada ku noqonaysaa waxaas dhagxaanta waaweyn stop ku qorqorxan yihiin iyo waxyaabaha shaqafyada ee xunxunka ee yaalla ciidamada u yaalla waxaasoo dhan in la bedelo oo la fiiriyaa wasiirka amniga laga rabaa iyo gudoomiyaha gobolka ee cusub inay fiiriyaan waxaasna laga bedelo biro fiican u dhiga at least oo nadaaf leh oo qurux badan ayaa loo baahan yahay waa wax badan baa la yidhi anugu dee inaan sii dheereeyo ma rabo laakiin waddankeenani wuxuu marayaa transitions fara badan ayaan ku jirnaa waa geedi baan ku jirnaa waxaan ka guuraynaa amni darro amni baan u guuraynaa geedigii baan ku jirnaa waxaan ka guuraynaa dhaqaale xumada iyo maxaan waa ka budgetkeenana waa kan 1 bilyan gaadhay dowladda federaalka kanna hadda caawa waad u jeedeen meeshu sii gaarayo oo gobolka banaadir waad arkayseen marka iyadana waan koraynaa geedi baan ku jirnaa dhinaca dhaqaalaha berri mise saadama khamiista insha allah waxaa la furi doonaa mashruucii ugu weynaa abid muqdisho laga furo ayaa la furi doonaa mega project ayaa insha allah rajaynayaa in la looji gareeyo oo nidaam oo la yidhaahdo economic zone iyo maxaan ku dhahaa magaalo dhan oo dhaqaalaha ah ayadu ka shaqaysa oo airport leh weyn oo deked weyn leh oo dhul shirkado maxaan ku dhahaa deegaano waaweyn iyo meelo leh ayaa insha allah halkaas laga samayn doonaa ilaahay idankiisa oo magaalada aan rajaynaya inay amiir la bilowdo hawshaas ay la bilaabato marka waddankan wuu socdaa marka transition aan ku jirnaa waan guuraynaa transformation sanadka waa aragteen xukuumaddu inay samaysay nidaamka isbeddelka qaranka la yidhaahdo oo la guuraayo meel kastoo la joogay laga guuraayo horey loo soconayo dhaqaale ahaan siyaasad ahaanna waa midda hadda la sheegayo ay magaaladani bilaabi doonto haddii la yidhaahdo oo ah markii ugu horreysay 55 sano kadib in dadkeena loo celiyo awood oo la yidhaahdo maayirkiina idinku keensada guddoomiyaashiina idinku keensada wasiir arrimo gudo dambe oo wax soo borbosgarayn doona ma jiri doona haddii la yidhaahdo madaxweynahana ma soo magacaabi doona haddii la yidhaahdo wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay uu ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii la yidhaahdo ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado qof soomaaliya oo aada soo doorateen ood u aragteen iska kingaday oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aad aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii ilaaha yidhaahdo laakiin lama soo magacaabi doono 52 sano kadib waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan in madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daallay waxaa la soo gaadhay xilligii aynu xuquuqda bani aadamka kale ay leeyihiin ama dad yawa kale ay leeyihiin dadkeenun ay yeelan lahayn kama duwanin kuwa nairobi jooga ee duqa nairobi doorta deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin annaguna marka waxaa la gaadhay xilligii caasimadani oo ahaan jirtay africa caasimadda ugu nadaafadda badan ee ugu qiimaha badan waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hogaaminta caasimadaha africa marka taasna waa midaas oo transition siyaasadeed baan ku jirnaa ama geedi siyaasadeed oo iyo dimuqraadiyadeed oo aan ka guurayno nidaamkii ismagacowga isxulidda ee hal qof ka go-ayey oo aan u guurayno nidaamka xaqa loo celinayo dadka awoodana shacabka la siinayo kaasna waan ku jirnaa
waxaan ku jirnaa guuridda inaan ka guurno colaado inaan u guurno nabad inaan ka guurno khilaaf inaan ka guurno wada socod iyo wada shaqayn waad aragteen waxyaabo fara badan baad soo arki jirteen dowlad is wada khilaafsan isku wada dhegan is wada haysata hadda ma dowlad iskhilaafsan baad aragteen waa isbeddel micno leh oo dalkan gaadhsiiyey in laga hormaro in la hormaro oo deyntii la sheegayay gabdhuhu heesta ay wiilasha ku sheegayeen laynaga cafiyo oo aan hubka cunaqabataynta hubka laynaga qaado oo aan security councilka fadhino oo aan east africa ku biirno oo aan dhaqaale ahaan aan waxaa waaye nisbe aada u weyn korodhno runtii oo faqriga 15 hoos loo dhigo waxaasoo dhan waxaa keenay wada shaqaynta dowladda muddada kooban la wada shaqaynayey ee aan khilaaf jirin ee aan problem jirin ayaa keenay maalinkii problem iyo khilaaf yimaado waxaasoo dhan hal xaba kama soconayo marka wada shaqayntaas iyo guushaas runtii waa jid cusub oo u bilowday Soomaaliya ana rajaynaya ilaahay idankiis inay inoo sii socoto marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in aad isu noqotaan khayr salafin li khayri khalaf marka mid khayr qaba oo baxay iyo mid khayr qaba oo yimid inaad isu noqotaan aan rajaynaya waxaan rajaynayaa in madaalana uusan dee sacasaynta kaga istaagin intuu geedkaa fadhiistee laakiin inuu la qaado waana sidaan ku heshiinay oon horey uga wada hadalnay in ay isna noqon doono oday geed fadhiisaya odayaashii kalena waa kuwaasoo way joogaan marka dee odayaashana amiirow waxaa laga rabaa inaad ogaato gacanta lagu hayo maxaan ku dhahaa magaaladanay meeshaan soo gaarsiiyeen qiimahooda ayay leeyihiin kulligoodna waan u wada mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan ku gabagabayn magaaladani sida aad sheegtayba adigu waa saldhiggii dowladda federaalka ah waa muraayadii iyo hoygii ummadda Soomaaliyeed marka waa sidaa darteed bay saan dadkani dulqaadkeeda u leeyihiin shacabkan waxay og yihiin inay hooyadii ummadda Soomaaliyeed ay iyagu yihiin waxay og yihiin hooyigii inay yihiin waxay og yihiin inay saldhiggii ummadda Soomaaliyeed yihiin caasimaddii ummadda Soomaaliyeed muraayadii ummadda Soomaaliyeed taasaa keentay inay mas-uuliyad dareemaan mar kastoo ay madaxda qaranku meelaha kale ka kala duwan ka timaada gobolladan jeeda stateska ay halkan imaadaan shirar la qabto halkanaa martiqaad loogu sameeyaa waa lagu soo dhoweeyaa waa loogu heesaa waa lagula dardaarmaa waxaa la tusiyaa in ay halkani tahay magaalo madaxdoodii inay halkani tahay hoygoodii inay halkani hooyadood tahay ayaa la tusiyaa marka qof kasta oo Soomaaliya qalbigiisa muqdisho ayaa ku weyn maskaxdiisa muqdisho ayaa ku weyn marka magaaladan waa magaalo sidaas ah oo saa u karaamaysan marka ilaahayna adigu hadda kuu gartay oo uu kuu karaameeyey inaad guddoomiye ka noqoto ilaahay ha kuu fududeeyo inta ka soo qayb gashay oo dhan mar kale waad mahadsantihiin waxaan leeyahay sida uu sheegay walaalkeen horumar iyo hadaf loo dhan yahay aan kulligeen aan ka wada shaqaynaynaa annaga xukuumadda federaalkaana waxay kula garab taagan tahay hiil iyo hoob waana kula shaqaynaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu